مدح الحسين عليه السلام يزيد بن معاوية markaasuu yaziid wuxuu qori ku mudmuday afka alxuseynu isagoo leh nufalliqu haaman min unaasin acizatan calayna wahum kaanuu acaqa wa adlamaa oo macnaheedu yahay waxaan goynay madax dad casiis ku ah annaga korkeenna ayaguna waxay ahaayeen caaq waa caasiye iyo kuwo dulmi falay oo isaguna waa fiican yahay xuseenna wuxuu ahaa siduu leeyahay caaq buu ahaa calayhi salaamu abu barza wuxuu yidhi waxaa la xifdiyey waa inuu warkaasu ahaa cubaydullaahi agtiisa markaasuu abu barza wuxuu yaziid ku yidhi ka qaad qorigaaga madaxiisa oo waxaa hubaal ah inaan arkay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam afkiisa oo saaran alxuseynu afkiisa wuxuu yidhi cumar wuxuu u soo kaxeeyey haweenka iyo ciyaalka alxuseynu cubaydullaahi kama uusan harin waxaan ahayn wiil buka oo haweenka la joogay markaasuu cubaydullaahi amar ku bixiyey in isagana la dilo markaasay eeddadiis zaynab wiilka isku kor tuurtay ayna tiri la dili mayo jeer anigana la idilo markaasuu u beer jilcay uuna shaam u diyaariyey markaasay markay yaziid u yimaadeen ayuu dadkiisa wada shiriyey ayna u hambalyeeyeen waa yaziide mujrimka reer ashaam markaasaa waxaa istaagay nin guduudan oo indho bulug ah leh oo gabar yar oo haweenka ka mid ah dhugtay kadibna yidhi waa haweenka ahlulbeytka weeye middan aniga ii hibee amiirulmu'miniinow markaasay zaynab waxay tidhi maya wallaahi oo karaamo ma lihid laguna siin mayo jeer aad diinta ilaahay ka baxdid markaasuu yaziid wuxuu ninka ku yidhi ka har markaasuu haweenka iyo ciyaalka ku daray haweenkiisa iyo ciyaalkiisa uuna diyaariyey oo almadiina uu u qaaday madiina almunawara ayaa caruurta ahlulbeytka loo qaaday calaamadaha la arkay dilka alxuseynu calayhi salaam dabadiis ibnu siriin wuxuu yidhi samada uma ayan booyin yaxye calayhi salaam dabadiis axad aan alxuseynu ahayn cuhmaan bin abi shayba wuxuu aabbihiis ka wariyey oo awowihiis ka wariyey inuu ciisa alxaarith alkindi ciisa bin alxaarith alkindi yidhi marka alxuseynu la dilay waxaan joognay maalmo 7 ah oo markaan salaada casar tukanno aan qoraxda ka fiirinaa derbiyada daraftooda aana aragnaa sida iyadoo ah almulaaxifu almucasfara almulaaxifu almucasfara maro culus oo lagu midabeeyey dhirta cusfur la yidhaahdo oo midab guduudan siinaysa waxaana fiirinay xidigaha oo aan aragnay ayagoo isku dhacdhacaya almadaa'ini wuxuu caliyu bin
mudrik ka wariyey inuu awowihiis alaswadu bin qays yidhi dilka alxuseynu kadib samadu indhaqabadkeedu waa alafaaq meesha alhorizon la yidhaahdo oo aad meeshaad moodo inay cirka iyo dhulku isku dhegayaan guduud ayay noqotay oo sidaasay ahayd 6 bilood ayadoo dhiig u eg haashim bin xasaan wuxuu maxamed ka wariyey inuu yidhi ma og tahay sababta samadu ay u guduudan tahay sidaasay ahayd tan iyo maalintii alxuseynu la dilay alfasawiyu wuxuu wariyey inuu muslim bin ibraahim ka wariyey ummu suuq alcatiya oo tiri waxaa ii warantay nadra alasdiya oo tiri marka alxuseynu la dilay samadu roob ayay soo di'isay markaasuu shay walba oo aan lahayn noqday mid uu dhiig ka buuxo jacfar bin sulaymaan addubaci wuxuu habaryartiis ka wariyey inay tiri marka alxuseynu la dilay waxaa noo dacay roob dhiig oo kale ah yaxyaa bin maciin wuxuu jariir ka wariyey oo ka wariyey yaziid bin abi ziyaad oo yidhi alxuseynu waxaa la dilay anigoo 14 sano jira markaasay dhirta la yidhaahdo alwarasu oo xeradooda ku yiilay waxay noqotay ciid samaduna way guduudatay waxayna xeradooda ku gowraceen hal geel ah oo ay markaas hilibkeeda dab ku dhex jiro arkeen oo dabkaa hilibka ku dhex jira weeye ibnu cuyayna wuxuu ayeeyadiis ka wariyey inay tiri waxaan arkay dhirta waraska oo ciid noqotay waxaana arkay hilibka oo uu dab ku dhex jiro maalinta alxuseyn la dilay xamaad bin yaziid wuxuu jamiilu bin mura ka wariyey inuu yidhi waxay soo wateen geel ku jiray xerada alxuseynu maalinta la dilay markaasay karsadeen qaar ka mid ah markaasuu hilibku wuxuu noqday sida dhirta la yidhaahdo alcalqamu ahna alxandha ahna geed kharaar badan quratu bin khaalid wuxuu yidhi waxaan maqlay aburajaa alcutayridi oo leh waxaan lahay nin daris ah oo u dhashay bal hujaym qabiilka la yidhaahdo markaasuu wuxuu yimid alkuufa oo wuxuuna yidhi maxay idinla tahay faasiqan uu faasiqu dhalay oo ilaahay dilay uuna ka wado alxuseynu calayhi salaamu markaasuu ilaahay samada uga soo ganay 2 xidigood oo uu araggiisa tirtiray waa indhabeelay cataa bin muslim alxalabi wuxuu assudiyu ka wariyey inuu yidhi waxaan imid karbala anigoo ganacsi u socda markaasuu oday tayi u dhashay cunno noo sameeyey oo aan agtiisa ku cashaynay markaasaan waxaan xusnay dilka alxuseyn waxaana idhi kama uusan qaybgelin dilkiisa ninna ee waa kan ilaa si xun
u dhintay. markaasuu wuxuu yidhi been badnidaa anigaa dilkiisa ka qayb galay. annagoo aan meesheennii ka dhaqaaqin ayuu wuxuu u dhowaaday faynuusta isagoo nafto ku shubaya. markaasuu liifadda farihiisa ku soo bixiyey oo uu dabka farihiisu qabsaday. markaasuu wuxuu ku damiyaa calyadiisa oo uu markaas dabku garkiisa qabsaday. markaasuu orday oo uu biyo isku dhex tuuray. markaasuu gubtay oo aan arkay isagoo shidan. ibnu cuyayna wuxuu eedadiis aabbihiis dhashay ayeeyadiis aabbihiis dhashay ka wariyey inay tiri waxaan soo gaaray 2 nin oo ka mid ah kuwa alxuseynu dilkiisa ka qayb galay oo midkoodna kuskiisu dheeraaday ilaa uu ku laablaabo korkiisa, kan kalena wuxuu u qasdaa haanta dadka laga waraabiyo markaasuu kulligeed wada cabbaa. boohinta umu salama calayhi asalaamu ee dilidda alxuseynu calayhi salaamu. abu khaalid alaxmar wuxuu ka wariyey rasiin oo ka wariyey salma oo tiri waxaan u soo galay umu salma oo booyeysa waxaana idhi maxaad la booyeysaa? waxay tidhi waxaan arkay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam anigoo hurda iyadoo uu madaxiisa iyo garkiisaba ciidi saaran tahay. markaasaan waxaan idhi maxaa kugu dhacay rasuulka ilaahayow sala allahu calayka wasalam? wuxuu sala allahu calayhi waaalih wasalam yidhi shahidtu qatla xuseyn aanifan. waxaan haddeer goobjoog ka ahaa dilka alxuseynu. rasiin waa ibnu xabiib. ibnu maciinna wuxuu yidhi waa hiqa lagu kalsoon yahay xadiidkiisa. xamaad bin salama wuxuu camaar bin abi camaar ka wariyey inuu yidhi waxaan maqlay umu salama oo leh waxaan maqlay jinniga oo alxuseynu u booyaya una barooranaya. suwayd bin saciid wuxuu camr bin thaabit ka wariyey inuu xabiib bin abi thaabit yidhi inuu maqlay umu salama inay tiri waxaan maqlay baroorta uu jinnigu alxuseynu dilkiisa u barooranayo. jinniga oo alxuseynu calayhi salaam u baroortay. cubayd bin jannaad wuxuu cataa bin muslim ka wariyey inuu abujanaab alkalbi yidhi waxaan imid karbala markaasaan waxaan nin madaxda carabta ka mid ah ku idhi waxaan maqlay inaad adinku maqashaan baroorta uu jinnigu u barooranayo alxuseynu calayhi salaam ee ma sidaasa? wuxuu yidhi la kulmi maysid qof xor ah ama addoon ah oo waa kan ilaa kuu sheega inuu baroortaas maqlay. waxaan idhi adigu ma maqli jirtay? adigu ma maqal miyaa? wuxuu yidhi waxaan maqlay ayagoo leh waa jinnigee masaxa arasuulu jabiina falahu bariiqun fi lkhuduudi abawaahu min caliyan min culyaa qurayshin wajadduhu khayru ljuduudi. labada tixood macnahooda waxaa weeye rasuulku
wejigiisuu tirtiray, dhabanadiisuna way birqayaan. labada dhashay waa kuwa qurayshta ugu sarraysa. awoowihiisna sala allahu calayhi waali wasalam waa kan awoowayaalka ugu khayr badan. maxamed bin jariir wuxuu abuu cubayda ka wariyey yunis bin xabiib oo yidhi, markuu cubaydullaahi dilay alxuseynu iyo ehelkiisa, wuxuu madaxdooda u diray yasiid. markaasuu marka hore dilkooda ku farxay, in yar dabadeedna uu ka shallaayey dilkooda. markaasuu wuxuu odhan jiray, waana yasiide, maxay iga dhimi lahayd haddaan dhibka u adkaysto, alxuseynna aan agtayda dejiyo, aanna ku xukumo siduu isagu doono. aniga taasu daciifnimoba ha iigu sugnaatee, aanna sidaas u yeelo dhowrid aan dhowrayo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waali wasalam, iyo ilaalin aan xaqiisa ilaalinayo. allaha lacnadu ibnu murjaana uuna ka wado cubaydullaahi, isagoo xaraj iyo ciriiri geliyey, dagaalna ku khasbay, isagoo weydiistay inuu iska daayo oo uu ku noqdo meeshuu ka yimid, ama uu aniga ii yimaado, ama uu gacantiisa gacantayda geliyo, ama uu xad ka mid ah xuduudda dowladda islaamka aado oo halkaas jihaad u joogo. markaasuu intaasoo idilka diiday oo dilay. markaasay muslimiintu dilkiisaas igu naceen, oo quluubtooda dhexdoodana cadaawadayda ku abuuray. jariir wuxuu al-acmash ka wariyey inuu yidhi, nin u dhashay bani asad ayaa wuxuu ku hor xaaray qabriga alxuseynu. markaasaa waxaa ehelka ninkaas ku dhacay waali iyo baras iyo saboolnimo iyo juudaanba. hishaam bin alkalbi wuxuu yidhi, marka qabriga alxuseynu biyo lagu shubo ayuu raadka qabrigu tirmay. markaasuu nin reer miyi ahi raadka biyaha soo raacay ilaa uu qabriga ka yimaado oo uu booyey, uuna yidhi, araaduu liyakhufuu qabrahu can caduwihi, fatiiba turaabu lqabri dalla cala alqabri. waxay la dooneen inay qabrigiisa cadowgiisa ka qariyaan, laakiin carafta qabriga ayaa tilmaantay qabriga. sufyaan bin cuyayna wuxuu ka wariyey jacfar bin moxamed oo aabbihiis ka wariyey oo yidhi, caliyu waxaa la dilay isagoo 58 sano jira. alxasanna wuxuu ku dhintay isagoo intaas jira. alxuseynna waxaa la dilay isagoo intaas jira. waxaan idhi, hadalkiisa ah xasanna intaasuu ku dhintay waa qalad, bal wuxuu noolaa 47 sano. jamaacadu waxay yidhaahdeen wuxuu dhintay maalin cashuuraa sanadka 61 waa xuseyne. waxayna qaarkood ku dareen inay ahayd maalin sabti ah. waxaa kaloo la yidhi maalin jimce. waxaa kaloo la yidhi maalin isniin. wuxuuna dhashay bisha shacbaan ee sanadka afaraad ee hijrada. cabdulxamiid juuda asaxaar
cabdulxamiid bin bahraam iyo mid kaloo lagu kalsoon yahayba wuxuu shahri bin xuushab ka wariyey inuu yidhi waxaan la joogay umu salama haweenta nabiga sala allahu calayhi waaalih wasalam markuu u yimid warka dilka alxuseynu markaasay waxay tidhi oo miyay dileen ilaahay ha ka buuxiyo qubuurahooda ilaahay ha ka buuxiyo qubuurahooda iyo qubuurtooda dab intay suuxday ayayna dhacday markaasaan kacnay oo taagnay oo tagnay axmed bin moxamed bin yaxya bin xamza wuxuu ka wariyey aabbihiis oo yidhi aabbahay xamza bin yaziid alxadrami wuxuu ii sheegay oo yidhi waxaan arkay haweeney ka mid ah haweenka ugu qurxoon uguna caqli badan lana yidhaahdo rayaa ahna tan xanaanaysay yaziid oo la yidhi inay gaartay 100 sano waxayna tiri nin ayaa wuxuu u soo galay yaziid uuna yidhi abshir oo ilaahay waa kaa adkaysiiyey alxuseynu waxaana la keenay madaxiisa oo markaas baaquli lagu riday markaasuu addoon ka amray oo marada laga qaaday markaasuu markuu arkay uu wejigiisa daboolay sida isagoo uu urkiisu soo gaaray oo kale markaasaan waxaan haweenta ku idhi ma ilkihiisuu qori ku garaacay waxay tidhi haa wallaahi xamza wuxuu kadib yidhi qaar ka mid ah ehelkeenna ayaan waxay ii sheegeen inay arkeen madaxa alxuseynu oo dimashaq ku waran 3 maalmood riyaa ama rayaa waxay ii sheegtay inuu madaxu ku jiray bakhaarka hubka la dhigo ilaa uu boqor ka noqdo Suleymaan markaasuu u cidiray oo loo keenay isagoo noqday laf cad markaasuu dambiil ku riday uuna cadar mariyey uuna kafnay uuna ku duugay qubuuraha muslimiinta markaasay markay almusawidatu waxaan u malaynayaa musawidatu inay shiicada yihiin oo duub madow duubata u soo galeen ayay weydiisteen meeshuu madaxu yaallo oo ay markaas qabriga kala soo baxeen oo ay qaateen ilaahay ayaana u cilmi leh waxa lagu falay wuxuuna xusay qisada inteeda kale isnaadkeeduna xoog ayuu leeyahay